waxay dib ku qabeen biyaha ee halkan imaada oo degmada warta nabadda iyo boondheeraba eeriyada inta deganba laga barakici jiray waa ilaahay mahadiis mudan gudoomiye hadii aad maantay xalkii ilaahay ku waafajiyay oo aad arki doono in biyo dambaahi aysan shacabkeena uusan u gali doonin wadadana quruxdeeda nalkeeda iyo nadaafadeediina ay iswadato aan mar dhow insha Allah aan dib uga xarig jari doontid muddo badan oo burburkii maxaa la yiraahdaa anagoo og qiimaha iyo magaca iyo masabka ummadda Soomaaliyeed ee ugu fadhiso halyeeyga Soomaaliyeed ee General Daawud adigoo og mas'uuliyadii inta la ekeed oo magaca iyo shacabkii iyo ummadii aad mas'uulka ka ahayd gudoomiye annagana aan ka gaarsiin doono dad badan baa qoorta soo taagaya gudoomiye Cumar dhahayeen roobka markuu imaado aad dhex taagneed baahidaas darteedana keentay inaad xalkeedii ilaahay ku waafajiyo oo meel walba meeshii aad ka heli karto maxaa la yiraahdaa garab iyo gacan aad kala raadisay aan aragno maantayna inaysan biyo fadhinin wartii boondheere markii ay buuxsantana warta nabadda dhibaato u keeni jirtay marka hadii aysan wartii boondheere ee maanta faaruq tahay caawa ay faaruq tahay ma u maleyn doono in shacabkayga warta nabadda laga arki doono in saqdhax habeenkii anagoo u gurmaneena ama biyihii hooyooyinka umulaha ay caruurtii dambe aan arki doono waana guul wanaagsan oo run ahaantii la gaaray waana kaaga mahad celineynaa mudan gudoomiye aad iyo aad aan kaaga mahad celineynaa run ahaantii waxaan salaan kaaga wada qaasitan aniga dadka waxgaradkii iyo shacabkii degmada Boondheere oo ku hambalyeynaya oo dhowr jeerna dhaheen gudoomiyaha inaan aragno oo hambalyeynaa jeclaan lahayn ayaday xaqiiq ka tahay mahadaas waxa iskale ilaahay baa iskale adiga iyo maxay ahayd rugta ganacsiga ayaan uga mahad celineynaa maxay ahayd adigu aad maaragtay hormuud ka tahay mudan gudoomiye wax badan laga qabtay degmada Boondheere oo shacabkii maaragtay niyadooda dhisay tii ugu darayna waa tan oo feeskii saddexaad oo hadda gabagaba yahay insha Allah taala aan jecelnahay mar dhow inaad xariga ka jari doonto sida ay sheegtay dhigayga Marwe Zeynab na maaragtay anaga nadaafada iyo bilicdi iyo wixii nooga aadan aan diyaar u nahay mar hadii noola dhiso noola qurxiyay la misaaridda wadada General Daawud oo runtii meel dhexe ayadoo maraysa ay hakad geliyeen roobabkii meegaanka isdaba joog ahaa xilligii xagaaga hadda dabayaqada ah wadadaas sida uu sheegay gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed waa wadooyinka ugu magaca iyo macnaha weyn gobolka Banaadir wadadan waxa laga soo bilaabay dhismaheeda baar ayaan waxa la keenay meesha Siinaa ayaan hadda laga soo bilaabay waxa hadda ay ku dhowdahay meesha la yiraahdo degmada Boondheere ayaa la soo gaarsiinaya warta Boondheere iyo roobabkii isdaba joog ahaa ayaa hakad gashay waxa farxad noo ah markaa in la misaaridda caawa oo noo bilowday oo ah 6da bisha September wadadan markaa muddadii sanadka aan joognay ayay tahay wadadii lixaad oo mataqaana la dhisay waxa jiray wadooyin kale oo la dhameystiray oo hawshooda socotay marka aan xafiiska imaanayay oo ka soo bilaabata wadada ka soo bilaabata jidka warshadaha ilaa meesha la yiraahdo Cali Kamiin iyo baar ayaan ilaa Siinay way socdeen wadooyinkan la dhisay wadooyin aan ka yareyn ama ka badan ayaa weli burbursan balse madaxda rugta ganacsiga iyo maamulka gobolka oo iskaashanaya waxa naga go'an inaan la arkin biidnillaahi kariim wada burbursan oo ku taal gobolka